mudaharaadyo ballaaran ayaa ka socda Baakistaan kadib markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii dalkaasi Imraan Khan. haddaba muuqaalkeenani waxaynu ku eegi doonaa Waa kuma Imraan Khan? falowsaar haddii aad buka ku cusub tahay la egdha muuqaalka siina sheergare oo la wadaaga asxaabtaada. Magaciisa oo dhammaystiran waa Imraan Khan Niyaasi. Waxa uu bishii Oktoobar sanadku markuu ahaa 1952 ku dhashay magaalada Lahore ee caasimadda gobolka Punjab. Waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo sareba waxa uu ku soo qaatay isla magaalada Lahore. Waxa uu culuumta dhaqaalaha iyo falsafada ka diyaariyay jaamacadda Oxford ee dalka Ingiriiska. Mr. Khan waxa uu yaraantiisii aad u jeclaa ciyaarta cricketka, waxaana uu ciyaari jiray xulka qaranka Baakistaan. Sanadku markuu ahaa 1992 waxa uu xulka qarankiisa kula guuleystay koobka adduunka ee ciyaarta cricket. Isla goortaasi wax yarun kadib soo shaabixii uu ku soo shaabacay ciyaaraha cricketka, waxa uu toos ugu soo biiray siyaasadda. Sanadkii 1996 waxa uu Imraan ku dhawaaqay xisbi cusub oo lagu magacaabo Pakistan Tehreek Insaf, kaasi oo magaciisa loo soo gaabiyay PTI. Imraan Khan waxa uu xisbigiisa u diyaariyay inuu ka qayb galo doorasho, waxaanu sanadkii 2002 ka qayb galay doorashadii ka dhacday dalka Baakistaan. Waxa uu hal xildhibaan oo kaliya ku yeeshay golaha baarlamaanka ee dalka Baakistaan oo ka kooban 342 xildhibaan. Sanadkii 2013 xisbiga Imraan Khan waxa uu ka qayb galay doorashadii ka dhacday dalka Baakistaan, balse nasiib darro xisbiga Imraan kuma uu guuleysan doorashada sababo la xidhiidha inaanay helin boosas ku filan oo ay ku soo dhisaan dowlad cusub. Waxaana doorashadaasi ku guuleystay ra'iisul wasaarihii hore dalka Baakistaan Nawaz Sharif. Sanadkii 2018 ayuu Imraan Khan si weyn ugu guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi, isagoo ku soo baxay natiijo aan la filayn, waxaana uu codeeyay in ka badan 170 xildhibaan. Sidaasina waxa uu ku noqday ra'iisul wasaarihii 22aad ee dalka Baakistaan. Markii uu talada Baakistaan qabtay, waxa uu siyaasad dhexdhexaadnimo ah kula shaqeeyay wadamadii siyaasadda iska soo horjeeda lahaa ee ay xidhiidh kala lahayd Baakistaan, oo ay ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ruushka, iyo sidoo kale wadamada Sacuudi Carabiya iyo Iiraan. Ra'iisul wasaare Imraan Khan intii uu talada dalka hayay waxa uu aad wax uga qabtay adeegyada aasaasiga ee bulshada, waxaana uu sare u qaaday caafimaadka. Sidoo kale waxa uu waxbarashada maadiga ah ku daray manhaj diini. Sidaasi si lamid ah waxa kale oo uu kor u qaaday awoodda militari ee dalka Baakistaan, iyadoo Baakistaan markii uu xilka la wareegay ay ku jirtay kaalinta 17aad ee wadamada ugu awoodda badan dunida, halka ay sanadkani 2022 Baakistaan fadhido kaalinta 7aad ee wadamada ugu awoodda badan dunida. Imraan Khan waxa uu aad u necbaa reer galbeedka, waxaanu reer galbeedka ugu hanjabi jiray inaanay dadka muslimiinta ah u ahayn addoomo, isla markaasina aanay samaynayn waxa ay rabaan. Ra'iisul wasaare Khan tan iyo markii uu talada dalka Baakistaan qabtayna waxa uu soo jiitay indhaha shucuubta muslimiinta kadib markii uu fagaarayaasha toos ugaga dooday qadiyadda dadka muslimiinta ee dunida. Ugu dambeyntii Sabtidii aynu soo dhaafay ayay baarlamaanka dalka Baakistaan xilkii ka qaadeen ra'iisul wasaare Imraan Khan, kuwaasi oo maalmo ka hor inuu ka dhicisoobay mooshin ay xilka uga qaadayeen Imraan Khan. Si kastaba ha ahaatee, taariikhda dalka Baakistaan ma ay dhicin ra'iisul wasaare keli ah oo dhammaystay muddaxileedkiisa 5 sano ah. Inkasta oo mucaaradka dalkaasi ay aad ugu riyaaqeen tallaabada ay qaadeen baarlamaanka dalku, haddana waxa uu Mr. Khan sheegay inay tahay faragelin shisheeye oo uu dabada ka riixayo Mareykanku, waxaana uu taageerayaashiisa ugu baaqay inay difaacaan sharafta dalkooda. Xisbigiisa PTI-na waxa ay wacad ku mareen in ay xubnahooda kala soo bixi doonaan baarlamaanka, isla markaasina ay ka hor iman doonaan xukuumadda cusub ee dhalata, waa haddii xilka qaadistu ay dhaqan gasho. Imraan Khan waxa uu caan ku yahay diidmadiisa damacyada reer galbeedka, taageeridda qadiyadda muslimiinta, iyo inuu si gabasho la'aan ula saaxiibay cadowga Mareykanka oo ah Shiinaha iyo Ruushka. Taasi ayaana loo badinayaa inuu ninkani sababsaday. Haddaba daawade maxay adiga kula tahay?